إلى قرني لبكون أوسنو دلشري نبي عيسى كهر تكاد بربري ويشدني وحنا لو يقين ملاوا قرني كواد دلشري نبي عيسى كهر ريسي حبت أقول حيث باب المندب إلى راس حافون وحلورين كريد برا برتمي قرني لباد برا ويسيتي وحلورين كريد حبت أقول حيث باب المندب إلى سنشبار قرني صدحات وحي صوغلي دلك صوغلي غريغي قرني سغالاد oo gariigu ay ka qaadan jireen uduga waa fooxa beeyada iyo foolmaroodiga qolofta diinka waxay sheegeen in la oran jiray barbara oo ka mid ahayd dhul weyne la isku oran jiray baabuli oo ka koobnaa afar magaalo qarnigii 11aad shiinaha oo qoreen dynasty barbara waxa la baayacmay jireen way ka qaadan jireen alaab fara badan waxay sheegeen iyagu waxay ka qaadan jireen kadib inay xeebta berbera ugu yimaadeen 20 awr oo maalin kasta laga raro oo diri dhabo loo raro dadkaasu oo dad dhaadheer ahaa waxay diri dhabo u yiqiineen buu yidhi jannadii doqmooyinka paradise of ashes waxa kaloo shiinuhu sheegay dadka halkaas awrta ka rari jireen inay dhaadheeraayeen beershiyanka oo ay ka mid tahay waa Iiraan iyo dalalkaas oo dhan way xil soo doonan jireen buu badeecado kala duwan ugu duurjoogta ugu badnaatee waxay ku yimin jireen buu koloniyooyin kun awr ah ay ku yimin jireen dadka halkaa ku soo nool buu may caabudi jirin sanamyada waxa ay u tukan jireen buu cirka waxaana hayeen buu dad qani ah oo dhulkooda iyo dadkoodu ay qani yihiin waxa uu sheegeen rabbu inay hadii beelkeeda leeyahay qaawanaayeen oo dhanaanay xidhnaayeen laakiin ay hargo inta hoose hargaha xoolaha ay ku qarin jireen buu wuxuu dumarkoodu waxay haayeen buu qaar qurux badan oo dabeecad dhaqan wanaagsan 1822 waxa yimi markab la oran jiray Queen Anne oo badeecad fara badan siday qoladii markabka wakiilka u ahay ayaa waxay isku qabsadeen qola kale oo ay isku reeriyihiin Queen Anne waa la xanibay intii markabkaas laga murmaayay ayaa warkii fiday dabayl xoog laba soo dhacday markabkii uu dalooshamo dhagax ku dhacay markaa waxay yeelan dadkii halka deganaayeen markabku wakiilka hayo ku qabsaday aan kala fogeynaba waxay markabku wixii ku jiray oo dhanbay la degeen waana qaybsadeen ingiriisku markii uu warkaas gaaray wuxuu India ka soo diray 3 markab oo kuwii dagaalka ah 2 maalmood ayaa lagu goolaftamay dadkii markabka alaabta kala degay meesha deganaa iyo dadkii askartii markabka saaray ayaa 2 maalmood lagu goolaftamay kadib dadkii waxay iska saareen 6 qof 6dii oday ayaa soo go'aamiyay in ay la dagaalami karin manawarada hubaysan ee ay nimanka la xaajoodaan way la xaajoodeen 8 qodobna way ku heshiiyeen oo ay ugu horeysay in maqti bixiyaan yani wixii xoolaha halka lagu dhacay oo bariga lagu qiimeeyay $6,000 waa 197 sano waayahay 1940kii ingiriiska ayaa bilaabay inuu halkan uga qaado waxoogaa waan soo yar koobayaa halkan waxa laga yiri marka waxa weeyaan dekada berbera maanta arkaysan 1975kii ayaa Turkigu yimi oo qaybiyo halkaas ka dhisay 1945kii waxa uu dhisay yuwani satiga ugu horeeyay oo yaqaano Makedoniya waaye 1969kii waxa dawladdu Soviet dhisay kiiga cusub leeyahay oo 928 mitir 1900 imka 3 sano ka hor DB World baa bilowday inay 400 mitir oo dheeraad ah ku darto dekada berbera hadda jirta waxaan sheegayaa 50 sano dekada berbera jirta 20 sano waxa kamid ah maamulkii loo jiray Soomaali Port Authority 30 sanadood in ku madax banaanay
saddex sano ka horna waxaa laga dhigay wakaaladda dekedaha Somaliland waxaana ka mas'uul tahay horumarinta dekedaha min Saylac ilaa Ceelaayo. Wasalaam.